cabdiweli maxamed cali gaasi cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa hadda waxay gebi ahaanba ay si cad u sheegeen in ay diyaar u yihiin inay soo gabagabeeyaan khilaaf waliba oo ka dhex taagan qaybaha kala duwan ee Puntland. cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray in ay wax waliba ay hadda dhamaadeen isla markaana dhibaato kasta oo Puntland ka jirta ay filla Soomaaliya gadaal ay ka riixaysay taasina aan waqtiga kan xaadirka ah loo dul qaadanin sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Puntland. cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu tilmaamay in ay waqti badan ay ku bixiyeen sidii Puntland ay dhibaatayna kaga dhici lahayn. cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in waqti badan ay ku bixiyeen Puntland sidii ay horumar ay ku gaari lahayd isla markaana waqtiga kan ay diyaar u ahayn Puntland inay dagaal ay ka sii socoto. Puntland ayaa dagaal kala duwan waxa ku dhaxmaray hogaamiyaha Puntland iyo sidoo kale taliyaha ciidamada BCF-ta waxaa taasi ay noqotay saameyn badan mid shacabka qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada Boosaaso ee ku yeelatay Cabdiraxmaan Faroole iyo sidoo kale cabdiweli gaas cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dhammaantoodba waxa ay waqti badan ay ku bixiyeen sidii gebi ahaanba Puntland dagaalada ka socda looga hortagi lahaa cid kastana ay sheegeen inay tallaabo cad ay ka qaadi doonaan. tani ayaa waxay ka dhigan tahay inay si gaar ah ay ugu dadaalayaan waqtiga kan xaadirka ah madaxdii hore ee Puntland iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa maalmihii ugu dambeeyay cabsi xoogan ay soo wajahday iyagoona ka baqdin qabay in magaalada ay gasho xaalad adag taasina ay horay u ballan qaadeen mas'uuliyiinta Puntland in wax waliba ay soo gabagabeyn doonaan. waxaa hadda la wadaa qorshe ah in Dani iyo sidoo kale Maxamuud Diyaano in gebi ahaanba la isku hor fadhiisiyo isla markaana gebi ahaanba ay soo hor fadhiistaan isla markaana la xalliyo wax waliba oo tabashaha labada dhinac ay kala qabaan. inkastoo Diyaano uu horay u tilmaamay in Dani ay isku dhow yihiin isla markaana mar waliba uu diyaar u yahay in wax waliba la xaliyo. tani ayaana ka dhigan in khilaafka hadda ka jira Puntland uu noqonayo mid gebi ahaanba uu soo gabagaboobay inkastoo filla Soomaaliya qarash fara badan ay ku bixisay sidii dagaalka Puntland ka soconay inuu si laba jibaarmo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa si gaar ah loogu eedeynaya dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira qaybo ka mid ah deegaanada Puntland iyadoona dadkii hore ay hore u sheegeen in ayna marnaba u dul qaadanaynin iyadoona madaxdii hore ee Puntland oo hore u sheegeen inaysan marnaba u dul qaadanaynin in Puntland waqti kan dagaal ay gasho cid kasta oo dagaal doonaysana ay ka hortagi doonaan.